برتي ما دي كدر سيدود كيس دريلا درجة قاري إيدي كودي مايو كعمو دالس إيدور حنواية قعمو داليس إدور حوايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذين سلامي ميل كستو aad joogtiin maanta waxaan rabaa inaan igala hadlo ama wax yar niiga faa'iiday hadduu ilaahay karaale noqdo daawada la yiraahdo oo xanuun joojiyaha morphine ayaa rabaa inaan igala hadlo. Morphine sidiisaba waa xanuun joojiye culus oo kama dambeyn ah waaye oo ma aragtay xanuunka bini'aadanka ziyaadada ka joojinayo. Dhaqtarintana badanaa waxay ugu qoraan waxaa loo qoraa dadka ma aragtay adiga shil xun galay oo xanuun badan hayo ama dhaawacyo badan soo gaaray ama operation culus qofkii maro maxaa la dhahaa dadka wadna xanuunka ku dhaco kaleeto ama calool xanuunka ziyaadada soo boodayo qofka uusan jiifi karin uusan joogsan karin meel u roon meel kale aysan kala jirin hada colic pain camal markaan ku leeyahay waxa waaye xanuun joojiye culus oo dhanka caloosha ka socdo sida dhagaxda qofka dhagaxa markuu ku kaco oo kaleeto sidoo kaleeto waa loo qoraa waxaa loo qoraa dadka maxaa la dhahaa oo xanuun oo semberi mar walba oo xanuun haynayo oo xanuunkaasito waqti la soo kooba ama waqtigaas uu ku egyaa ama waxaanita oon jirin oo adi xanuun meel uu ka imaanaa weli oo akhbaaraad laga haynin camal sida ma aragtay kansarka sidoo kaleeto waa loo qoraa. Dhaqtariinta waxay kaloo u qoraan morphine ma aragtay qofka markay neefta ku xirmayso qofka markuu neefta ku xirmayso kaleeto oo ma aragtay adi wadnaha dhiiga si fiican u kala bambeyneynin oo heart problem dadka qabo wadna xanuunka sidoo kaleeto iyo dadka morphine-ka sidiisaba magacyo kala duwan ayuu ku imaadaa magacyadaasito u kala baxaan Kapanol, MS Contin, morphine sulfate, Oramorph, morphine drunk iyo morphine supposed ahaan Sendolor iyo Marasec. Marka daawada marka isticmaashid xanuun joojiyo ka sokow ahaan isbedel ayaa kugu imaan karo isbedeladaasito oo ma aragtay jirkaaga soo gudbinayo adiga qof suuxsan camal aad noqonaysaayo oo hurdaysan reaction-kaaga ama ma aragtay fikirkaaga waqtigaasito wuxuu noqonayaa daciif oo ma aragtay waxaa kugu dhagaayo ma aragtay istijidi xaarkii wixii baa kugu dhagaayo caloosha ayuu dhajinayaa caloosha ilaa imandhicirka dhibaatooyin badanaa kala kulmi kartaa sida tan camal inaad lablabo iyo ma aragtay gaas iyo matag iyo waxyaalaha calool xanuun inaad isku aragtid iyo adigoo cuntadii aadan si truus u qaadan karinin laakiin ma badno waxa waaye boqolkiiba adi 30 qofooda lagu sheegi karaa xanuunaadkaasito inuu la soo zaa'ido markay isticmaalaan morphine-ka ka dambe. Morphine-ka marka intoo nooc ayuu kugu soo mari karaa waaye wuxuu kugu soo mari karaa ahaan in si kaniini ahaan inaad u laqdo oo kaniini ahaan hab kaniiniyeed ahaan xanuun joojiyahaas ku jiro ma aragtay sidii supposed oo kaleeto sida paracetamolka ilmaha caruurta dawada looga geliyo kaleeto inuu kugu soo maro faleebo ahaanna waa la isku siiyaa oo dhakhtarku u qoraa laakiin iyo isagoo cabitaan cabaysid oo kaleeto sharoobo ahaan u cabaysid marka kulligood marka wada shaqeyntooda ayaa kale markii hadda faleebo lagugu siinayo kaleeto dhiigaaga qaybta dhanka oo dhiiga wuxuu raacayaa ma aragtay oo madaxda u ma fahamte ma aragtay kumid ma ahan sida kaniinigo kaleeto oo waqti badan qaadanayo ilaa ay mandhicirka ilaa wax ilaa si uu kala dilaacayo ma fahamte daawadan morphine-ka la leeyahay daawooyin kaleeto ma isku isticmaali kartid oo ma aragtay waa isku dhacayaan ama daawadii kaleeta awoodeeda yaraanayso ama adiga zaid ugu xanuunsanayo marka daawadanito hadda morphine-ka leeyahay camal markii laga soo siinayo farmashiga waxaa ku dhagan baakada korkeeda ama meesha kugu jiro lagugu soo shubo ayaa waxaa ku dhagan sticker yar oo jaalo oo lagu soo dhajiyay macnaheedu tahay inaad taxadarkaaga qabtido
maadaama oo ma aragtay actationkaaga uu yareynayo daawadanit actationkaaga yareynaysaa marka ma xataa ma aragtay mashiino ama waxyaalaha haddaa ku shaqaysid oo halis ah aad joojisid ma lagu ogolo aad meesha kasii wado gaariga baabuurka xataa 2 wiig ugu horeeya ma wadi kartid oo lama ogolo xitaa ma aragtay saas ay tahayna qofka bini'aadanka uu madax adeegi karaa ma aragtay waxyaalo ka badan ka hoos bixi karaan saas ay tahay haddii askarta ama booliska oo ku qabto waqtigaaseeto oo kaleeto ama checkpoint meel oo waxa ku soo dhacday sheeg oo alkali waxa la iskaga baarayo wuu sheegayaa in alkal ama wax soo isticmaasho ayuu sheegayaa marka ma la ogolo ina baawur aawadid sidaas darteed way og yihiin ayagana marka ganaax iyo ma aragtay dhibaatooyin ka soo kala kulmi karta taasna looma baahno ma aragtay mala dhihin qofka oo daawadan isticmaalayo ganaax ma laha ama sidii qof daraaga soo isticmaama alkala soo caba camal aan lagu dhaqmaaya marka sidaas darteeda attentionka in la qabo waayo xeerkaani tan 1 July 2017 ayuu soo baxay 2017 soo baxay waa aragtay waa arimo oo mar walba soo noqnoqdo attentionkana u baahan midda kale aan rabo inaan nigala hadlo waxay tahay qofka dumarka ah markay rabto inuu uur inay qaado oo kaleeto dhankaasito orda waxyaalo badan hadda laga og yahay oo aqoon yaqaanteena oo ama maragtay farmashiyaasheena soo saareen hadda ma jirto ma la ogo laakiin dhakhtarkaaga waa inaa kala hadashaa maxaa la dhahaa horta hore daawadan hadda isticmaalaysay oo ma aragtay oo hore u isticmaalaysay oo dhakhtarkaaga ama isbitaalka ku ogolaaday ma isticmaali karaysid ma aragtay adiga waqtiga dhalmadaada ama fooshaada ay soo dhawaato maxaa yeelay cunuga waxa lagu leeyahay badanaa marka neefta iyo ay waxaas ayaa dhibaya ma fahamtay teeda kaleetana adiga cunugii markaa dhashid oo kaleeto haddana naasaad siinaysaa ma aragtay caanihii ugu dhex jiraa daawadii cunugii marka waxaa dhibaatooyina uga imaanaysa sida ma aragtay cunugii oo iska hurhurdaysano isaga dhanbo iska miyirla ama ma aragtay sheeg neeftii oo dhibta cunuga taasna looma baahno waxa u baahan tahay dhakhtarkeena lagala hadlo insha Allah soo dhakhtarka arrimihiina iyo ma aragtay xanuunaadka jiro isla socdo midda kale xigto waxa waayo oo muhiim ah in la ogaado daawadani markaa isticmaalaysid adoo iska isticmaalay xanuun iyo wixii uu ka dhamaaday dhakhtar lama tashanin farmashi lama tashanin ma iska joojin kartaa horta jawaabtu waxay noqonaysaa adii ma wanaagsano inaad hal mar joojisid mar walba waxaa loo baahan yahay in aad tartiib u joojisid haddana daawadan markaa waqti badan soo isticmaalaysid jirkaaga ayaa la qabsanayo waxaa laga yaabaa xanuunkii wixii ku hayay inuu ku deeyo caafimaad waxa aad ka dareentid laakiin waxaa loo baahan yahay tartiib inaad u joojisid macquul waaye inaa ma aragtay daawada sida u joogtid inaa iska joojisid laakiin waxa laga hadlayo waxay tahay marka bari yar aad isticmaalayso kaleeto hal mar waa joojin kartaa marka qof walba jirkiisa bini'aadamka sibuu Ilaahay u abuuray marka waxaa jiro qofka bini'aadamka isla markii daawadaaneeto jirkaaga galaysa waad la qabsanaysaa marka waad u baahanaysaa waxa uu baranaya jirkaaga mar walba u baahantahay noqonaya taasna looma baahno marka hadda oo baryile isticmaalayso isla markii aad joojisid waxa laga yaabaa in aad dhan deganaan iyo wax inaadan howlaha ku dhameysanin adii shuban isku aragtid matag labo ma aragtay cuntadii oo cuni weyso handhiso ama qandho dhidid badan iyo hurdo la'aan ama depression ama cabsi oo kula soo kulanto daawadana way wadataa waxa siito laakiin badanaa waxa waaye qofka markuu long time uu isticmaalo marka sidaas darteeda inaadan cayoob aadan joojinin muhiim waaye morfiinka sidiisaba daawo adiga iska soo gadan karaysid ma aha waa xanuun joojiye aad u culus sidaas darteed ma aragtay safetygeeda aad ayaa loo adkeeyay maxaa la dhahaa morfiinna horta ma aragteen waa international waa adduunka dhan laga yaqaanaa magacyo badan oo ku imaadaa marka waxa waaye dhakhtar kaliya ayaa ku qori karo adiga ma iska soo gadan kartid ma iska isticmaali kartid ma laga haya ma aragtay kaliyaha ama ma aragtay beerka waxa u baahan tahay dhakhtarkaaga inaad la xiriirtid oo faahfaahin dheeraad aad ka heshid meeshaan hadalkayga aan kusoo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa inaa wax ka faa'iidiin
weliba dadka maaragtay dumarka ilmaha lagu qalo badana daawadan la siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.